aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga aad noo hortay mar walba sidoo kale barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay sidaan ka dhawaajiyaba xanuunka ku dhaca wadnaha horta guud ahaan xanuunka ku dhaca wadnaha war tusaale adoo noo soo gaabinaya naga sii bismillah mahdow sida adiguba carabawday wadnaha waxaa ku dhici kara xanuuno fara badan oo kala jaajaada qaar ku dhaca wadnaha laftiisa oo muruqa ku dhaca qaar pericardiumka garanaysa ku dhaca qaar xididada wadnaha ka baxa ku dhaca qaar valveska uu wadnuhu leeyahay ku dhaca qaar infection ah tumors ama fiixo ka soo baxa oo qaarkood cancer yihiin wadnaha oo dhiig ka xidhmo oo aan jecelahay waliba caawa inaynu taa soo hadal qaadno oo aanu si fiican uga faa'iideyno insha Allah marka wax weeye waxyaabo fara badan baa ku dhici kara laakiin guud ahaan inta aynaan xanuunka bal taabanin in yar taabano sida wadnuhu u shaqeeyo iyo qaabkiisa iyo bal sida ay wax yihiin wadnuhu waxa lagu qiyaasaa garanaysaa qof walba waxa la yiraahdaa gacantiisa intiisaas iyo wadnihiisu way isleeyihiin wadnaha iyo gacantiisaas oo third side duubani way isleeyihiin baa la yiraahdaa wadnuhu waxa weeye waa organ aad u muhiim ah oo 24 saacadood shaqeynaya oo aan marnaba nasanin mar qura saaniya second ma nasto mar walba waxa weeye dhiigga ayuu bamgareynaya iyo mar uu dhiigga bamgareynaya mar dhiigga ayuu magaranaysaa qablaya oo ku soo dhacaya wadnaha laftiisa dibadna magaranaysaa inta relaxation-ka uu ku jiro ayuu bay nasiino tahay intaasina markuu dhiiggu ku soo dhacaba uu si kala baxaya markuu dhiiggu ku soo wada dhamaadana uu bamgareynaya dhiigga si fiican ayuu tufaya marka wadnuhu embryologically macnaha carruurtu ilmaha yar marka uurka ku jira samaysmayo oo organiska ugu horeeya ee samaysmaa waayo noloshiisa oo dhan waxay ku xidhan tahay wadnihiisa siduu noqonayo mashaakil fara badan baa ka yimaada oo magaranaysa carruurta wadnuhu ay ku dhashaan iyagoo isu dalola iyo iyagoo neerfayaasha wadnuhu laftiisa uu leeyahay laftiisa ay wax ka khaldamaan intaba structure ahaan wadnuhu afar qaybood ayuu qaybsamaa ama laba dhisma ahaan laba qaybood buu qaybsamaa oo qaybta bidix iyo qaybta midig oo mid walba ayuu sii qaybsanta laba qaybood oo qaybta sare magaranaysa loo yaqaano magaranaysa qaybta loo ventricleska ku hoosa iyo magaranaysa atriumis ku la yiraahdo oo xagga qaybta sare ah marka atriumis ku dhiigu ku soo horeeya ama ka yimaado sababka ama ka yimaado magaranaysa jidhka oo dhan markuu ku soo horeeyo labada sare dibadna wuxuu gudbaa labada hoose ventricleska la yiraahdo Soomaaliya way ku adag tahay in lagu sheego magaranaysa organiska jidhka oo dhan meel kasta yaani daqiiqi jiddan marka isku soo duuduubo afarta qaybood buu qaybsamaa wadnuhu waana organ aad u muhiim ah mar walbana shaqeynaya sida organiska kale ee jidhkeena ka mid yihiin ama beerka ama maskaxda ama magaranaysa kaliyaha iyo organiska taranka ama xubnaha taranka oo kale xanuunada nooc waliba ugu dhici karaan ayay kana ugu dhacaan xanuuno fara badan oo kala duwan wala ay jiraan xataa qaar la hidaysto waan gartay haddaba xanuunada wadnahan ku dhaca miyuu noocyo badan yahay bal noocyadiisa kala duwan nooga sheekay sidaan imika hadda mahada soo xusay waxa weeye wadnuhu wuxuu noqon karaa xanuunada ku dhacaya qaar infection oo ay keento magaranaysa ama bacteria ama virus ama wax lamid ah waxaan xasuustaa yani in badan inaynu ka sheekeynay idaacadda markaynu ka hadlaynay xanuunadii magaranaysa aynu ku sheegnay magaranaysa kuwii pericardiumka ku dhacay iyo endocardiumka laftaba oo infective endocarditis ay kamid tahay oo xanuun magaranaysa dumarka u badan ahaa xanuuna baa jira carruurta yaryar marka ay dhashaan magaranaysa wadnahooda uu abnormal yahay oo ay isu dalolaan atriumiska ama ventricleska labada qaybood sare iyo labada qaybood hoose laftoodaba waxaa magaranaysa wax jira conductive system wax la yiraahdo oo ah inuu wadnuhu u shaqeeyo si normal ah waxa laga wadaa inuu magaranaysa time la yaqaanana contraction sameeyo dibadna time la yaqaanana relaxation sameeyo dibadna taasi ay noqoto inuu labada qaybood ee sare iyo labada qaybood hooseba ay wada shaqeeyaan si normal ah ay wada shaqeeyaan oo wada socota haddaba haddii ay mushkilad ku dhacdo taas waxa weeye waxaa lumaya magaranaysa xaddigii magaranaysa per minute uu garaacayo wadnuhu ama way bataan ama huwa yaraadaan hoos bay u dhacaan marka guud ahaan xanuunada waxaa jira magaranaysa caaw waxaan jeclaa inaynu kusoo qaadano haddii ilaahay ka dhigo kan ku dhaca magaranaysa wadnaha laftiisa oo muruqa laftiisa ku dhaca sababtuna ay tahay dhiigga wadnaha waraabinaya wadnuhu waxa weeye organiska oo dhan buu dhiig siiyaa soo maaha oo waana organiska waana organka ugu muhiimsan maadaama uu haddaba yahay magaranaysa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhiig oo dhan waraabiya maskaxda waraabiya kaliyaha waraabiya jidhka oo dhan waraabiya mindhicirka waraabiya muruqyadeena yani jidhkana meel kasta dhiig gaadhsiiya isaga laftiisu dhiig buu u baahan yahay waa muruq marka maadaama muruq yahay oo dhiig u baahan yahay dhiiggii wuxuu ka qaataa circulationka halka ugu horeysa markuu saa u bamgareeyaba isaga ayaa dhiiggiisa qaataa xididda loo yaqaano coronary systems ama coronary arteries
ayaa waraabiya oo laba ah midig iyo bidixa marka labada haddii ay magaranaysaa ay xidhmaan taas ayaa magaranaysaa waxaa ku dhaca wax loo yaqaano angina ama myocardial infarction waan gartay haddaba anagoo markaa gudaha usii gelayna bal sidee loo daaweeyaa laba nooc baad imika magacaawda nooca khafiifka ah sidee loo daweyn karaa horta marka ugu horeysa inta aynan daweynin xanuunku laftiisa wuxuu mahado magaranaysaa qof ka qabanaya waa central chest pain waxaana sababtu keenta ay tahay xididka laftiisii waxaa xidhaya maxay tahay waa baruur inta badan risk factorieska ugu muhiimsani waxa weeye waxaa xidhaa waxa weeye waa cholesterolsha xididku markuu diameterkiisa ayaa magaranaysaa diameterka uu leeyahay xididku ayaa yaraanaya waxaana xidhaya cholesterolsha ayaa fadhiisanaysa cholesterolsha markay fadhiisato waxay yareynaysaa cholesterolsha waxa weeye waa fatscan qayb kamid ah fatska marka oo ah dooliga ama tan wanaagsanayn magaranaysaa jidhkeena aan u fiicnayn waxaa jira iyada ayaa LDL iyo HDL baa la kala yidhahda LDL waxa weeye jidhka uma wanaagsanaa mashaakil bay ku keentaa dhibaato fara badanna way keentaa marka qiyaasaan la eegay u korodhana mashaakil bay wadataa halka HDL ka fiican tahay oo iyadu ay la yidhaahdo waa tii wanaagsaneyd oo iyada mar walba saacidayso wadnaheena iyo jidhkeena intaba ay wanaagsan tahay marka haddaan ku horeeyo xanuunadan wadnaha aynu khaasatan cilaaqada tooska ala leh baruurta iyo magaranaysaa iyo mashaakilkan ka dhasha coronary magaranaysaa blockage-ka waxaynu odhanaynaa angina ugu horeysa angina bacteries waxa weeye waa xanuun oo qofku ka dareemo mahado central chest pain inuu halkaa xanuun ka dareemo ama pain baanu ahaan inay tightness dareemo culays aad moodo in magaranaysaa lagaga taagan yahay laabta ama magaranaysaa sida loo hayo oo magaranaysaa aada loo cadaadinayo sidii yani qofka si garbaduub loo hayo Soomaali garbaduub in loo hayo qofkii baad moodaysaa xanuunkaasi marka wuxuu ka bilaabmaa xididkan wadnaha waraabinaya oo xidhma isaga inta badanna waxaa magaranaysaa precipitate gareeya waxyaabo fara badan oo waxyaabo kale oo very rare matalan anemia oo kale dhiglaantu way keentaa waxyaabaha kiciya anjeenada waxyaabaha kale oo kiciya waxaa kamid ah inuu qofku cuno magaranaysaa heavy meal cunno fara badan marka iyada lafteedu oo saddex nooca anjeenada lafteedu oo saddex nooca mahdo waxay leedahay mid qofku magaranaysaa stable oo magaranaysaa qofka degan oo markuu qofku exercise fara badan sameeyo ama in badan ordo ama jimicsi badan sameeyo ama in badan socdo ama uu ordo ayaa xanuunkaasi qabanaya oo ka dareemaya xanuunkii laabta oo wadnihii ayaan helaynin dhiig ku filan oo magaranaysaa oo ku shaqeeyo haddii kale wuxuu noqonayaa magaranaysaa mid kaa ka duwan waa kaa khafiifka ahun baynu ku wada jirnaa ma garantay marka ka labaad waxaa la yidhahdaa unstable angina oo qofku isagoo iska jiifa iska fadhiya ama shaqeynaya ama in yar wax yar markuu qabto ayaa lagu dhigaya xanuunkii uu qabanaya marka ka unstable baa la yidhahdaa kana hore aynu sheegaynay stableka isaga waxa weeye markuu qofku exercise fara badan sameeya ama jimicsi fara badan sameeya ama orod ama mashquul fara badan sameeya oo daalo ayaa magaranaysaa xanuunkii qabanaya sababtuna waxa wadnuhu aad u shaqeynaya dhiig fara badan buu magaranaya hadduu dhiig badan magaranayana wuxuu u baahan yahay magaranaysaa isaga laftiisii inuu oxygen helo nutrients marka xididkiiba xidhan xididkii isaga waraabinaya laftiisa xidhan marka xididka inta yara xidhan ee inta xidhan iyo inta furani ayaan isleekeen marka intan furani marka uu qofku restiga ku jiray aanu shaqeynaynin ama aanu exercise sameynaynin way ku filan tahay mahado dhiig yar buu qaadanaya dhiiggaa yar ee wadnuhu magaranaysaa rest positionka uu qofku yahay rest stateka way ku filan tahay haddii laakiin la eego marxaladan aanu magaranaysaa qofku uu shaqeynayo xididka intii yaradii maraysay intii furnayd dhiigga maraya kuma filla wadnaha marka maadaama exercise fara badan sameeyay wani jirku wuxuu u baahanaya oxygen fara badan oxygentu waa in wadnuhu aad u boomgareeyo dhiig fara badan wadnuhu dhiigga u boomgareynayana isagii baaban helin marka wuxuu keenayaa inuu caawdo oo yidhaahdo waan xanuunsanayaa ciyaar orodkaa la joojiyo ama socodkaa la joojiyo saasuu beenku u turjismaya magarat qaybta labaad waxa weeye marka isaga goormu ka ba'aya xanuunkaasi marka uu fadhiisto qofkii ama nitrates qato waa kaa khafiifkaa weli ka labaad waxa weeye ka saddexaadna waxa weeye waxa la yidhaha magaranaysaa princimental baa la yidhahdaa princimentalku inta badan dumarku ayuu ku badan yahay hablaha yararna waanu kusii badan yahay yani hablaha yarar ma lihiin waxaan ujeednaa da yarta habla yani inta ay 40 ka yar yihiin 35 iyo wixii ka hooseeya ayuu ku badan yahay marka isaga waxaa yimaada halkii aanu lahayn wadnaha xididkii waraabinayay baa xidhmay xididka wadnaha laftiisa waraabinayay muu xidhmin laakiin hadda waxaa ku dhacaya spasm la yidhahdo contract saas uu sameynaya yani contraction relaxation saas uu sameynaya ma degdeg wuxuu sameynaya waxa la yidhaahdo spasm waa inuu
مرة اسكو دغو مرة كلا فرمay مرة اسكو دغو مرة كلا يعني sidii wax xidhmay oo kale marna dhiig uu furmay kaas uu ka bilaabmaa ma garatay marka waxa inta badan lagu daweeyaa oo isaga lagu baaraaba ECG baalkan wadnaha lagu rakibo dhibco xadhka yar magaranaysa nadu dheer bas lagu dhijiyo wadnaha deedna marka wadnaha lagu dhijiyo halka waxa la arkaa magaranaysa waraaqda dhakhtarku uu akhriyo inta badan ama magaranaysa kuwa neersta ku takhasusay baalkaas ECG waraaqda yar loo yaqaan marka waraaqda yar bay sheegaysaa wadnuhu inta magaranaysa halka wax ka qabo qaybta wax qabta xididka xirmay iyo dhibaatadu halka ay tahay intaba waa tahay annaga marka gudaha u sii galayna labada waxaad ka dhawaajisay mid fudud wadna xanuunka iyo mid adag marka sidee loo daweeyaa bal dawadiisu ka fudud iyo ka adag labadaada waxay kala duwanaanayaan kan fudud aanu ku sheegnay anjeenada just way iyadu way iska tagtaa inta badan laakiin waxay halis u tahay inay sii korodho oo maadaama aynu ka hadlayno xidid xidhmay xididku hadduu matalan 10% xidhan yahay dhibaato ma laha 40% hadduu xidhmo waxa weeye uu dareemaya qofka markuu exercise sameeyo ayuu dareemaya haddii 70% uu xidhmana marka uu sii kordhaya marka 90% marayo dee xanuunku wuu ka badanayaa kii hore marka maadaama xanuunku kii hore ka badanayo sida loo daweynaya waxa weeye risk factors ama waxyaabo modifiable waxa jira wax la yiraahdo modifiable iyo non modifiable oo ah mid wax la bedeli karo iyo wax la bedeli karin risk factoraduna waxa weeye waxa qofka ku keeni kara ama ku kicin kara xanuunkan matalan in hadduu qofkani macaan leeyahay macaanka la controlo macaankiisa hadduu qabo ma garanaysaa sonkor ama macaan in la controlo macaankii hadduu dhikar leeyahay dhikarkii la controlo la ilaaliyo haddii uu leeyahay ma garanaysaa uu isticmaalo sigaar fara badan inuu sigaarka joojiyo hadduu miisaankiisu aad u badan yahay miisaankiisu sarreeyo inuu miisaanka dhimo oo yareeyo ma garanaysaa in lagu dhiirigeliyo inuu miisaankiisa iska rido waliba ayaa tahay muhiimsan ah oo hadduu sigaar cabo inuu yareeyo hadduu matalan leeyahay habar wax loo yaqaan habar lipidemia oo ay subag ku badan yahay dhiigga oo inta badan familial oo xaafadaha ma garanaysaa uu qofku ka riid ma garanaysaa xagga aabaha ama ka hidaysto ama xagga hooyada diraacu yahay in kaana lala socdo la ilaaliyo kaasa muhiim ah laakiin haddii xagga dawo noqoto waxa weeye aspirin iyo beta blockers iyo nitrates waxyaabo drugs fara badan oo kala jajaada balasiya oo aad iyo aad u muhiim ah marka la eego ka fudud weeye kan culus runtii ma hada uu ka duwan yahay daaweyntiisu kale waxa isaga lagu eegayaa halkan aynu nidhi xididku xidhan yahay 70% kan kale ee ka fudud ah marka uu exercise sameeyo iyo wadnihii dareemaya xanuunkii marka xanuunkii uu ka yaraanaya marka uu nasto qofkii waayada waxa ku kiciya exercise buu ahaa ama migraasa jimacsi fara badan ama shaqo fara badan ama cunno fara badan oo cunay marka haddii ay taasi tahay waxa weeye dhiiggu uu furan yahay xididkii meesha uu maraya laakiin uu yar yahay marka exercise sameeyo uu dareemaya laakiin markan uu kan culus aynu ka hadlayno ama kan acute coronary syndrome la heart attack waa la yiraahdaa ama heart attack qofka uu xanuun buu dhintay la sheega waa kan wadna xanuunka uu dhintay ee lagu soo booday inta badan waa kan xididkii yar yar uu soo xidhaya marka ugu dambaysa uu is xidhaya completely marka wadnaha laftiisii dhiigii gaadhaya ee waraabinayay maadaama cells wadnuhu ka samaysan yahay ama muscle yahay ma garanaysaa isaga markuu dhiig waayo wuu dhimanayaa marka waxay ku xidhan tahay arteriga xidhmay intuu leegaya ama xididkan xidhmay intuu leegaya haddii xididku xidhmay 70% wadnaha waraabinayay oo intaasoo dhan dhinto wadna markiiba qofku halka uu joogto ay nafta kaga baxaysaa waxaan maqalnaa in qofka wadnaha lagaga soo booday ama markaa wadna xanuun ku dhacay oo isagoo caadi iska qofkii oo markaa de magaaladii marayay ama socday baa wadnihii lagu soo booday isbitaalka loola cararay wuu dhintay bal maxaa taa sababay markaa tan aad isba ka hadlayso iyo tan hadda lagu soo booday miyay isla yihiin absolutely way iska dabdhow yihiin ha inta badan waayo marka qofku lagu soo booday ee uu dhinto la yiraahdo uu dhintay wadnuhu dhintay clinically waa la cadeeyaa waa la cadeeyaa cause of death in dhakhtarka inta la geeyo la jeexo dibadna la eego haddii uu markaa historygiisii hore uu la socday matalan uu dhakhtar hore uu waxa laga soo helayaa matalan systemka laga helayaa Norway oo kale matalan ama Europe oo kale qof waliba waxa uu xanuun leeyahay uu ka cawdo haddii cisbitaalka mar la dhigay haddii laba jeer la dhigay mar walba xanuunka uu ka cawdo ama fast leegiisa ayaa og oo ugu jira daatada ama magaran dhakhtarkiisa gaarka ama magaranaysaa kan dhakhtarkii la dhigay ayaa informationka wadna marka already isaga waa la socdaaba wax kasta uu qabo qofku marka taan isaga waa la soo helayaa laakiin wadamadeeni lama garan karo qofka uu sababta uu dhintay laakiin waxaynu naqaanaa inuu wadnaha uu dhintay wadnaha haddii uu yahayna
وهارتاج وقريبتن يعني ممكن كهذا كان نستارك شيء oo isagu in wadnuhu uu saliskii wadnuhu lahaayeen ama muruq maadaama yahay xididka waraabinay oo xidhmay xididka xidhmana haduu xidid weyn yahay oo wadnaha kala badh waraabinayay inta uu waraabinayo dhan way dhimanaysaa saliskaas oo dhan uu dhimanaya haduu saliskaas dhintana ma shaqeynayo hadaan shaqeynayna wadnihi contraction ma sameeyo hadaan contraction sameeyna dhiig ma garanayay wadnihi hadaan taasi dhicina shirki ma helayo dhiig ku filan sidee baa hadaba looga hortagi karaa wadna xanuunkan imika waxaad ka dhawaajiyo waxa yiri wadnuhu wuxuu muruqana xidid baa ka baxa marka dhiig waraabiya marka qofka qaba ama xididda xirmaya ka koowaad iyo kii fududaay kan adagba sidee looga hortagi karaa baad is leedahay ama loo daweyn karaa marka looga hortagi karaa su'aal wanaagsan ma hada runtii waxa looga hortagi karaa ama ma garanaysaa lagu yaraan karaa riskigan waxa weeye waxaynu ku sheegnay modifiable iyo non modifiable waxyaabo modifiable ka waxa kamid ah ma garanaysaa risk factors ka waxaynu qofka dum macaan leeyahay macaanka oo la kantaroolaa modifiable wax gacantaada ku jira ama qofka xanuunsanaya uu dawo u qaato oo dhakhtarkiisa la xiriiro oo si fiican u joogta oo isu nidaamiyo oo waliba u joogteeyo waxaynu naqaano cunnada saddex baa loo eegaa macaanka markay noqonayso وإنه عندنا لا كنترول أو عندنا ميزان أو دليل ترن لسيو قف كنا وباهي وحي أكسس كنا قنا دباتو كينينا أنا لسينين ميزان قريب ده لبعضنا وحوي إنه مقرنا سن دولة وقاطو وسي جوده وقاطو سو وكنترول مقرنا سن حد دباتو وكيني كرو معانكو قبل الصدق هذا هو أكتيفيتي حنون كان مقرنا خاصة لبعض نوع معانكو هاي ودايبات تايب 1 تايب 2 تايب 2 وحودتك وين بكون عمله ما هذا ضدك وين نكون عنا هريرتي وياه لكن انت بدون فوق دشا لايف كا ما قرنسا لايف ستايل كا nolosha lagu nooleeyo قف لايف ستايل كا مثل waxyaabaha cunayo controlling in macaan fara badan oo iska cuno waxyaabo fara badan oo xalwada inuu مثلا ana aad cuno ama iyo macaanka iyo waxyaabaha sankariyaad ku badan iskariyaad ku badiyeen oo aanu dibadna qofku exercise sameeyeen aanu loo iskareenaynin weydkii marka wax cuno iska nasto waxa leedahay wadna xanuun buu isku bedelaa marka wadna dhiikar macaanku dhiikar buu dabada ku haynaya wadna xanuun buu dabada ku haynaya damage fara badan buu gaarsiinaya marka number 1 waxa weeye in la control ma garanaysaa maxaa haduu qofku leeyahay haduu uu leeyahay in kan ku sheegnay hyperlipidemia iyo familialana in oo qaar baa sokortooda subag hadiga dufanka ee subaga ama ma garanaysaa dufanka ku jira jirkeeno ay badan yihiin mar walba inta normalka ka badan yihiin taasina waxay fiican in la control iyadana haduu dhikar leeyahay dhikarku halis buu ku yahay wadnaha ma garanaysaa marka isagana in la control waxa soo dhan in la control waa ku gacantaada ku jira sigaarka ayaa ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan waa maxay waa sigaarka marka kuwaas wax laga tari karo wax laga qaban karo iyo qofku exercise sameeya oo ma garanaysaa taa halka uu waxba aan laga qaban karin midna ching waxa wada genderka ragga iyo dumarka midna ninku labka iyo dhadiga iyo labka dhadiga marka midna ninka waxa weeye isagu risk factor buu weeye sidii soo socda risk factor nimcada ilaahay ku siiyay waxa ugu horeysan inuu ninka dhigay Soomaaliya nimadii lagaaga daba tagin waa lagaaga harin lagaaga dabay waxa lagu yiraahdaa si fiican ugu مقرنا سوي سبعي ويدحل كذا يحوي لباطي كوكينيس مركا من نمدي لفتيدي وحي وضعتا هرمونيسكا مقرنا سافر بدن أو أي رجل هين ودول كليين أياك إلى إنه كل حنون كان نكاله كان رجل كل ديه هل كان مركا نقطة كل دوية مركا وحكوا بدن يهاي رجع حنون كاني كسر الله صوتنا هرمونات دور أنت أيضا يوم كشران مقرنا ساحل كان عشان يفرطن كلا كنت كيجيه هرمونات ساك ساعدة إن أنا مقرنا سبيك حدة دلنا حرمين مركي حدة حلو لكن مركي دافته كنت كرنا دورش مقرنا ساحل لو نت بيريود كرنا ما هذا رجع لك لازمين أنت ريسك فاكتور مركا ريسك فاكتور كحوي رجع كميدا واحد كميدا أو أمل لماذا إيش كيا كميدا مركز إيش كيا مسيكر رام ده سيكر رام واحد سيكر ليه ريسك فاكتور كأما هلست هذا مقرنا سأقول نقول حنون كان حنون كان إنك شيء ناي أكيد كورونا سندروم أما هارت راجع واحد كله يشرب فاميلي الهيستوري مثلا بها يفهم لك أبتيجا أما هدراء دي قوة سنة وجرنا حق أنا وحويه ومقرنا يسا يعني الرير كابو طبيعي نمر رير كهداي أنا هدي سنة يسا حنون كيس كسر ضدوب وحويه حنون كنا هدي سنة يسا حاجة فاميلي أنا كهدي سنة يسا مركا حنون كوا حنون كنتي حالسا وأنا مشاكل فربنا بولي هاي سيدا لو دوين يوم مقرنا يسا سيدا لو لا تعامل يقف بقوابا way magaranaysa kala duwan marka loo eego nooc nooc uu yahay way anoo markaas su'aasha ugu dambaysa waxaan ognahay bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku nool caalamkan iyo wadankiiba
marka hore isbarbar dhigto ma jira macluumaad lagu sameeyey wadankii ama galbeedkan imika lagu noolyahay waxay ku kala duwan yihiin labada bulsho ee galbeedka iyo dadkii wadankii aan uga nimidba ها waxay ku kala duwan yihiin mahado halkan waxa weeye lifestyle-ku ka duwan yahay kii hore ee dalkeeni halkan baruurtu aad bay u yar tahay waxaana dadka lagu dhiirigeliyay inay baruurta iska ridaan oo ceeb baa meelaha qaarkood loo yaqaan halka dalkeeni ay qof ma garanaysaa qofku ka caloosha wasiya loo yaqaan ninkii alxamdulillah maanta waa ninkii hebel oo naaxay baan aragna yani loo yaqaan caafimaad baa loo yaqaan halkan xanuun baa loo yaqaanaa marka waxa kale oo kala duwan noocaan wax cunno xagga waxyaabaha aynu cunno iyo ka halkan aynu cunno weli kala duwan yihiin halka waxyaabaha la cuno waxa weeye inta badan wax dhaqankan ay ku fadhidaayo protein iyo carbohydrate waxyaabo dhan waa balance cunnadii markaad suuqa ka seebsanaysa adaa gacantaada ku jirtaa waxaad iibsanaysaa kuwii sunmaadka amase kuwii sunmaadka adiga markaa gacantaada ku jirtaa laakiin xagga dalkeeni waxa weeye inta badan dhaqankeeni waxa weeye waxyaabaha baruurta u badan tahay ma garanaysaa dhaqdhaqaaquna uu ku yar yahay ayay u badan yihiin marka risk factor aad u soconaya weeye raashinka dalkeenu sidaa weeye دكتور صديق محمود حسن آد ياد بان كاغا مهد علينا وقتها قالقا عندنا هورتي adiga mudan mahado aad iyo aad baan salaam yeelay akhyaarta hawada naga daawanaysa daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee caafimaadka maanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib u kulmayno doono anigoo mahad cabdullaahi idile salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh